warkii oo fidsan. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maamul goboleedka Puntland ay ogolaatay nidaamka doorashada Soomaaliya ee 4.5. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bogaadiyay dadaalka dheer ee ra'iisul wasaare Sharmaaka iyo maamulka Puntland ay ku horumariyeen danta Soomaaliya. madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay ogolaanshaha dowladda maamul goboleedka Puntland ay ku ogolaatay qaabka doorashada 2016 iyo wixii ka dambeeya. dowladda Soomaaliya ayaa deeq u dirtay gobolada waqooyi ee Somaliland. dowladda Soomaaliya ayaa maanta deeq lacageed oo gaaraysa $1 milyan u dirtay maamul goboleedka u dirtay gobolada waqooyi ee Somaliland si wax loogu qabto abaaraha ka jira gobolada waqooyi ee Somaliland. wafdi isugu jira odayaal dhaqameedyo, culamaa diin, ganacsato iyo qaybaha bulshada ayaa gaaray magaalada Hargeysa si ay wax ugu qabtaan dadka abaaraha hareeyeen. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay isku dhaceen hoobiyaal meel u dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho. xaafadahaasi ay ku dhaceen hoobiyaha waxaa ka mid ah Wardhiigle iyo Holwadaag. sida wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan waxaa jira khasaare nafeed oo gaaray dad rayid ah. wararka arrimaha dibadda. dowladda Australia ayaa sii daysay caruur soo galooti ah. dowladda Australia ayaa sheegtay inay sii daysay caruur ugu dambeyntii ay magangelyo doon ah oo lagu hayay xarumaha dalka lagu hayo ee jasiiradda Åland, laakiin waxaa jira tiro kale oo weli lagu hayo jasiiradda Nauru. caruurta jooga dhulka aan jasiiradda ahayn ayaa waxaa loo ogolaaday in ay si xur ah u dhaqaaqaan inta codsigooda magangelyo doonka laga dhageysanayo. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ka carooday hadal ka soo yeeray madaxweynaha Obama oo sheegaya inuu sii baaba'ayso xorriyadda saxaafadda dalka Turkiga. labada mas-uul ayaa wada hadal gaar ah ku yeeshay shirka socday nukliyeerka ee toddobaadkii hore. Erdogan ayaa sheegay in mowduuca xorriyadda saxaafadda aysan ka wada hadlin uuna aad uga xumaaday in Obama soo hadal qaado hadalkaasi ayagoo kala maqan.